dugsiyada dawladda ee gobolka Banaadir qaar ka mid ah halkan aan hadda joognaa waa dugsiga hoose dhexe sare ee Djibouti waxaan saaka soo maray dugsiga gabdhaha agoonta ee Boondere dugsiga Dhamna Yaasiin Cusmaan dugsiga Bartamaha dugsiga 21 Oktoobar iyo dugsiga 20 Diseembar waxay farxad ii tahay inaan arko ubad Soomaaliyeed iyo macallimiin Soomaaliyeed oo wax ku baranaya iskuulada dawladda Soomaaliya ay leedahay iyo wax barayaan macallimiin shaqaale u ah wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in dugsiyadu ay hawshooda habsame u socoto ardayda inta fursadda iyo nasiibka u heshay inay wax bartaan oo aan saaka dugsiyada ku soo maray inay haystaan inta badan agabkii ay wax ku baran lahaayeen gaar ahaan buugaagtii manhajka oo si lacag la'aan ah ay ku heleen waxaan ogahay in marka loo fiiriyo tirada ardayda ee waxbarashada dawladda heshay ay aad iyo aad u kooban tahay marka loo eego tirada ardayda ee dugsiyada gaarka loo leeyahay ama waalidiintu ay ku bixiyaan kharashka waxbarashada sidoo kaleeto waxaan ogahay inay jiraan tiro aad iyo aad uga tiro badan oo malaayiin ah oo kuwaan la mid ah oo kuwaan la da'a oo kuwaan la duruuf ah oo aanan haysan fursad waxbarasho aan haysan in ardayda Soomaaliyeed iyo ubadka Soomaaliyeed ay helaan fursad waxbarasho waa qayb ka mid ah mustaqbalkeena waa qayb ka mid ah amnigeena waa qayb ka mid ah horumarkeena waa qayb ka mid ah dalkeena iyo dadkeena in ay noqdaan ummad la jaan qaadi karto adduunyada cusub ee casriga ah waxaan runtii aad u bogaadinayaa dadaalka macallimiinta iyo ardaydu ay samaynayaan iyo maamulayaasha iyo maamulka waxbarashada ay samaynayaan si meeshan loo soo gaaro laakiin taas waxay ina saaraysaa waajib kale oo weyn oo ah in inta ka maqan iskuulada iyo inta duruufuhu ay u saamixi waayeen in waxbarasho aynu siino oo aynu ka wada shaqayno dhammaanteen waxaan kula dardaarmay macallimiinta iyo maamulayaasha iyo agaasimayaasha wasaaradda in adeegga waxbarasho ee ay bixiso dawladda federaalka ee Soomaaliya uu yahay adeeg lacag la'aan ah ardayda iskuulada wax ku barata iyo waalidiintoodba inaan laga qaadi karin wax kharash ah maadaama dawladdu ay daboosho kharashka iyo baahiyada asaasiga ah ee dugsiyadaas ay u baahan yihiin waa dugsiyo kooban arday kooban baa ku jirto laakiin ardaydaas waa inaanay culays kala kulmin sidii ay wax u baran lahaayeen maalmaha soo socdo iyo usbuuca soo socda haddii Ilaahay yiraahdo waxaanu ka shaqaynaynaa in la bilaabo bixintii shahaadada dugsiga sare oo ay ardaydu sugayeen waxa aan dhammaan qaybaha wasaaradda aan kala hadlay insha Allah wareegta cadna aan ku soo saari doonaa in adeegyada dawladdu ay u qabato waxbarashada inay lacag la'aan yihiin adeeg ma jiro dawladdu ay qabanayso oo ardayga Soomaaliyeed lacag looga qaadi doono marka laga reebo adeegyo kooban oo aanu ka hadli doono marka aan wareegtada soo saarno waxaan ku boorinayaa waalidka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa waxgaradka Soomaaliyeed in ay iyaguna ka shaqeeyaan sidii fursadahaas suuragalka ah ee haddaba jiro ay uga faa'iideysan lahaayeen carruurtooda inay keenaan dugsiyada wali dugsiyada waxaanu ka dalabnay inkastoo sanad dugsiyeedka uu bilowday in meeshiiba fursad ay ka jirto in ardayda loo ogolaado inay dugsiyada galaan kuwii subax aan dhigan karin inay galabtii dhigtaan sidoo kaleeto dugsiyada badankooda waxaa laga furay barnaamij waxbarashada dadka waaweyn ah oo lala socodsiinayo oo la gaarsiinayo inay la qabsadaan waxbarashada caadiga ah aad iyo aad waxaan u rajaynayaa inuu sanadkan noqdo sanad ka duwan sanadihii hore sanadaha soo socdana sanado ka wanaagsan inay noqdaan inaan aragno ilmaheenna
wiilasheenna iyo gabdhaheenna oo faraxsan wiilasheenna iyo gabdhaheenna oo qoslaayo wiilasheenna iyo gabdhaheenna oo mustaqbal fiican leh kuwani waa mustaqbalkeennii waa aayaheennii haddii aannu hagaajinno mustaqbalkeenna ayaannu hagaajinnay